usoo dhacaysan gabadhii ka weyneed baa xanuunsanaysa qalliin bay galaysaa qalliin qofku markuu galay weyne iyo yari midna waxma kala lahaan. Assalamualaikum, good evening, welcome back with another video. How are you? Hope you are all fine. And today video for my sister. I want that all my people pray for my sister, my friends, all you pray for my sister because tomorrow she have operation on liver. So it's too much dangerous because she have stones. So that's why. So I want all my team and all my friends pray for her. She will be okay, inshallah, inshallah. So I need your prayers. So hope you pray for me. MashaAllah, warantii waa idin wada salaamay dhammaan akhiirta anaga meesha ku jirtay kuwa aan ku jirin. Waxay tiri maanta waji cusub ayaa noo timid sida wajigii hore aysan ku qabin oo kale. Sababtoo ah qofka bini'aadamka maalin waxaa laga yaabaa inuu faraxsan yahay maalina inuu burugsan yahay. Marba xaaladaha adduunka way kala rogmaan way kala duwan yihiin sida badii oo kale waaye. Mar way kacdaa marna way degtaa. Marka maanta oo kale waxay u baahan tahay garab aad iyo aad u ballaaran oo dhan walba ah. garabkaasina ma aha lacag xoog waxyaalahaas dhan ma aha garabkaas oo qof walba uu awoodaa maanta waxay tiri kor walaasheeda iga weyn ayaa jirto waxay ka xanuunsanaysaa dhanka beerka waxaa laga yaabaa maanta ama berito in ay gasho operation oo aad iyo aad halis u ah taasoo ah dhanka beerka ah marka waxaa laga yaabaa operationkaasi hadda inuu ilaahay oo ay saas u ku qabsado ama inay ku badbaado laakiin waxyaalaha qaarkooda waxaa la dhahay sometimes rasuulkana calayhi salaatu wasalaam siduu dhahay waxaa baajin karo sadaqada iyo ducada marka damoor ah wax badan ah wixii damoor ayadan wax badan ay faa'iido ilaahayna uu naxariis uu muujiyo waxaa laga yaabaa midkeena mid ka mid ah ama idinka mid ka mid ah in ducadiisa uu soo duceeyo inuu ilaahay u aqbalo marka sidaas darteed meeshan waxaan soo fadhiistay inaan la wadaaga arrintaasi xanuunka badan oo lasoo gudboonaatay familkeega khaasatan walaasheeda iga weyn ducadaas ayaan u baahanahay waxaana idin rajaynayaa inay igu soo ducayn doontiin aad iyo aad ay u muugsan tahay qofka bini'aadamkana iska xaal adduunya waaye waa sidaas waaye insha allah waxaan rajaynayaa qof walba video aan arkana inuu ducada uusan waxba ku ahayn ama dhib ku ahayn inuusan soo ducayn doono haddii ilaahay idmo si wanaagsan ilaahay dacada aqbalo. Assalaamu calaykum dhammaantiin salaamaya salaan ka bacdi maanta wajigay xujadii hore ka duwan yahay noo soo fadhiisanayna anyway maanta waxaynu ku codsanaynaa walaasheen usoo dhacaysaan gabadhii ka weyneed baa xanuunsanaysa qalliin bay galaysaa qalliin qofku markuu galay weyne iyo yari midna waxma kala lahaan waxaa beerka xanuunaya beerkuna ciyaar ma ahan qalliin bay galaysaa maanta way sooman tahay ilaahay soonkeeda ka aqbalo iyadoo haddana saas tahay waxay jeclaysatay inay idinkeeda soo horfadhiistay raado ducaan idinka rabaa waxaa laga yaabaa in idinka idinka mida inuu ilaahay ducada aqbalo marka qof muslima maadaama uu qofku yahay wax fiican inuu qofku u duceeyo ducadiina nagu soo kaalmeen annaguna insha allah waa u ducaynaa aad iyo aad baa umahadsan insha allah. Yes, please everyone read Quran. Tomorrow she have an operation. After that 2 weeks she have another. So please everyone read Quran more. I didn't see my sister for a year. qof walba waxaan ka codsanaa inuu qur'aan soo akhriyo qur'aankaasoo qofka kalena uu dhaho aamiin markaas kadib ducadiina saas loogu aqbalo runaantii 4 sano iyo wax lamida walaasheeda maanan arkin haddana waxay galaysaa qarinkaasoo fadhiisan baris inaa usoo fadhiisin isku daya عليكم دمان أصحابته ولا شيء دعنايا هذه الكلام بالمساء بليس وسود دعية إله عافية بيرك عيار ماهن الله كل أنا أقول دعيني إن شاء الله دمان كأننا دعيني ذكر بليس وسود دعية لبرفع سنة وكذا بليس إن شاء الله تعالى ويعافي ما لسه سلوا عره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله maaha maalin farxadeed mana aha maalin weji cusub aan la imaanayno maanta kale wax kale nigama baahnin waxaan u baahanahay in gabadha loo duceeyo ee operationka galaysa cid lagu jiro ilaahay baa og adigaaga ay daawanaya aniga kula hadlaya cid lagu jiro ilaahay baa og ducada cid laga aqbalay ilaahay baa og marka waxaan jeclaysanaa walaashin inaan murugooda la qaybsano markay faraxsantana farxadda la qaybsano inunkuna sidaas oo kale ayaan riin rajaynaa committee-ga like ugu soo
badiya siduu fideogaas dad badan u gaaro oo iyadana duca badan u hesho aad baan ii salaamaya Thank you. Inshallah, I know you people pray. I know all of you. So thank you so much for this. والله وأركيسان أنا حتى على شيء هريسة anyway هذا قفك بني آدم كمالنا وحنوسنا يا ملائكة من المقطع ملائكة حنوسن anyway إذا كان مهمد وقوي محويان أي جودة ولا شيء من صعب فرصتي إن ولا شيء أو كوي أو سوكر سو أنت سوزنا أينا إسأكن إن أي ما تقلين جلسوا لي وقفك مركو قفك ليش هوجو وقصة مريا لكن قفك مركو ميل كلك تشوفه أدي أدو أدكتها that's why أنا صار فرصناي وأودع عيننا إذا كنا أودعية وني وكنا سنتين عشان مقال حاجة إن كان كل ما ناحية كده بش يا برواقه يدعو علينا هو استرجعك وبالله توفيق. باي